كل wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Saaki iyo VOS qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan degdeg ah ku baaqay xilli Muqdisho ay xiisada ka taagan tahay ururada bulshada rayidkaana waxa ay baaqay soo saareen colaadda xilligan ka taagan magaalada Muqdisho qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ayaa saaka bilaabay inay ka barakacaan halkaasi musharax madaxweyne Jibriil Cabdullaah oo ka hadlay colaadda xilligan ka taagan magaalada Muqdisho odayaal ku shiray Muqdisho waxa ay raaligelin u direen madaxweynaha wadanka Djibouti iyo dawladda wadankaasi أنا كبلونا داود يا رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلا يا كوبا قاي كلن دقدق ويسوي مادة مدحضة سياسيين تي يسدو كله معارض كي دولة الفدرال كاسي حلوق جارو حيصد علاضة كتاجن مقالة مقدشو كلنا يلاقات ورد بالشدة ريت كا وحنا كوبا قاي شير دقدقه ولجود الجنة يح على الدلك runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kulankiina maanta bulshada rayidka ay ugu timid halkan inkastoo baaqaygu xalay uu ku jiray inay bulshada rayidka igala shaqeyso nabadda waana dareemayaa walaaca aad muujiseen dhammaan qof kasta oo Soomaali ahna uu qaba walaacaas wixii dhacay xaqiiqdii ka ra'iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin waxay dawladdu diyaar u tahay in ay kala shaqeyso dhammaan inta nabadda jecel in xaaladda la xakameeyo oo laga baaqsado colaad iyo burbur ku yimaado dawladnimadeena naga wada dhaxayso waxaan ugu baaqayaa waxgaradka Muqdisho aad ku jirtaan iyo walaalaheen siyaasiyiinta ku sugan shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo loogana arinsanayo ammaanka waxaan farayaa dhammaan ciidamada sugidda ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo annaga aan ugu horeyno difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada siyaasaddan aysan ku milmin kana fogaadaan fal kasta oo xasiloonida wax u dhibaya waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho dhibkii ka soo gaaray wixii dhacay 24 saac ee ugu dambeeyay xukuumaddana oo aan aniga mas'uulka ka ahay waxay ka shaqeynaysaa in dhibkaasi uusan mar dambe soo noqon walaalahii bulshada rayidkana waxaan ka codsanayaa inay nagala shaqeeyaan oo aad fadhiga ka kacdaan waxaan shacabka farayaa in ay dulqaad muujiyaan kana qayb qaataan raadinta nabad waarta taageerana u muujiyaan dawladnimada aan haysano maanta waa ku mahadsantihiin dhinaca kale ururada bulshada rayidka ah ra'iisul wasaaraha kulanka la qaatay ayaa soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda colaadeed ee dalka ka taagan waxaana warbaahinta la wadaagay warmurteedkii halkaasi laga soo saaray mid kamid ah xubnaha ururada bulshada rayidka kulan ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo ay ugu horeeyaan bahda waxbarashada ganacsatada culumaa diinka dhaqaatiirta saxaafadda odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qaybo kale waxay diideen waxay diidmo xooga ka muujiyeen xaaladda amni darro ee ku soo korortay magaalada Muqdisho toddobaadyadii la soo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan gaar ahaanna magaalada Muqdisho ee caasimadda ah waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusboonaaday sidii loo xalin lahaa bulshada rayidka ah waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin waxayna dalbanayaan in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho dood dheer iyo falaaqayn kadib shirka bulshada rayidka ah wuxuu soo saaray qodobadan hoos ku qoran shirku waxa uu dalbanayaa in xabadda la joojiyo
waxa uuna hoosta ka xariiqayaa in nabaddu aysan geli karin gorgortan isla markaasna aan raalli laga noqon karin wax kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. labo qodobka labaad shirku wuxuu soo dhaweynayaa soo jeedintii ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee ahayd in wada hadal ku yahay xalka ugu habboon ee iminka u furan qaybaha kala duwan ee isku haysta siyaasadda. saddex shirku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah la isugu soo laabto miiska wada hadalka si khilaafka doorashada loogu xalliyo is-afgarad loo dhan yahay. qodobka afraad shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh iyo adeegsiga kooxaha baraha bulshada. shan shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. lix shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka. ugu dambeyn bulshada rayidka ahi waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato nabad ku soo dabaalidda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed haddii si loo hoggaansami waayo dalabka bulshada rayidka iyo talooyinka nabadeed ee ka soo baxaya shacabka Soomaaliyeed. waxaan caddaynaynaa inaanu abaabuli doono bannaanbaxyo ballaaran oo loogu hiilinayo nabadda iyo weliba in aanu joojin doono dhammaan adeegyada aan u hayno bulshada rayidka Soomaaliyeed. qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa bilaabay inay ka barakacaan halkaasi kadib markii shalay ilaa xalay ay ciidamo ka mid ah kuwa mucaaradka sheegtay ay halkaasi degeen. dadka ayaa xalay xilli dambe isaga barakacayay xaafadahaasi iyaga oo caruurta gacanta ka jiidayay waxaana ay u wareegayeen xaafado kale oo ay isla yihiin waa aad ku nabadgeli kartaan. xiisad iyo saasaan colaadeed ayaa weli ka taagan caasimadda Muqdisho iyadoo dhinacyadoo aanay weli kala dhammaanin amaba aanay xalka madambaysa gaarin isla markaana ciidamadu ay weli soo fadhiyaan. Musharax Jibriil Cabdulle oo xilka madaxweynaha Soomaaliya u taagnaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay colaadda ka jirta magaalada Muqdisho isagoo ugu baaqay dhinacyadu in ay xiisadda dejiyaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ramadaan Kariim. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogaan waxaan rabaa in aan idinla wadaago maantay dareenkayga ku wajahan dagaalkii shalay ilaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaan ugu horreyntii ka tacsiideynayaa dadkii ku barakacay, ku dhaawacmay ama dadkii ku dhintay dagaalka isaga ah. ilaahay waxaan uga baryaynaa intii ku dhimatay inuu jannada ka waraabiyo, ilaahay u naxariisto, intii ku dhaawacantana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caafimaad degdeg siiyo. sidoo kale waxaan rajaynaynaa intii barakacdayna inay guryahooda si nabad ah ugu soo noqdaan. magaalada Muqdisho hore ayay u soo aragtay arrimaha noocan ah waanan wax aad looga xumaado xaqiiqdii in dhibkaas shalay ka dhaco. qaxo wax fiican ma aha, dagaalku wax fiican ma aha. waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed qalbigooda isku soo dumo. xaqiiqdii waxaa nasiib xumo ah in dagaal uu dhaco iyadoo lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan oo ah bil cafis iyo bil cibaado ah. waxaa wax laga naxa ah in ciidamada ka wada tirsan ciidanka qalabka sida loo dhaariyay inay ilaaliyaan shacabka, difaacaan cadawga gudaha iyo dibadda, inay ku wada dagaalameen dhexdooda shacabka dhexdiisa gaar ahaan caasimadda dalka. dhibkii shalay dhacay waxa uu dhaawac weyn gaarsiiyey xaqiiqdii qarannimada iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo muddada dheer laga soo shaqeynayay. waa loo soo dhintay, dad baa dhiigooda dhacaankeed u bixiyeen. xaqiiqdii waa nasiib xumo inaan dib ugu noqono meeshii aan ka nimid. gacanka hadalkii shalay dhacay waxa uu niyad jab ku riday shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo horey ugu soo daalay colaad iyo dagaal sokeeye. waxa aan rumaysanahay in dagaalkii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda uu yahay
mid ka dhashay kursi jacayl iyo siyaasadeynta hay-adaha amniga qaranka, taas oo laga dhaxli karo cawaaqib xumo iyo dhibaato daba dheeraato. dhanka kale, qalalaasihii dhacay waxa uu salka ku hayaa go-aankii aan laga fiirsan ee bishii Abriil 12keedii uu qaatay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo waqti kordhin loogu sameeyay dowladda oo waqtigeedu dhamaaday. go-aankaas oo ah mid khilaafsan heshiiska bulsho oo ay ummadda Soomaaliyeed raalli isaga yihiin. iska hormaadkii ciidan ee shalay dhacay waxaa mas'uuliyadeeda iska leh dowladda xil gaarsiinta, isla markaana iyada ayaa mas'uul ka ah amniga shacabka, ilaalinta iyo adkeynta amniga shacabka iyo ilaalintiisaba. waajibka saaran hoggaanka sare ee dalka ayaa ahayd in ay xaqiijiso midnimada iyo kala dambeynta ciidanka qalabka sida. waana nasiib darro weyn xaqiiqdii in la gabay mas'uuliyaddaas asaasiga u ah soo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. waxaan marnaba la aqbali karin inuu burbur ku yimaado ciidan la soo dhisay in ka badan muddo 20 sano ah. waxaan wada xasuusanaa 1991 ama horaantii 90maadkii in si ku talagal ah ciidanka qaranka loo kala diray. mas'uuliyiinta xilligaa jirtay go-aanka qaateen, dhibaatadii aan ka dhaxalnay ilaa ay hadda ayayna haysataa. dal aan lahayn ciidan isku duuban amba amni, hay-ada amni isku duuban aan lahayn dal ma noqon karo. marka waa nasiib xumo, waa qalbi jab, waa walwal. laba wiil oo tababar soo wada qaatay oo wada Soomaali ah in maantay ay ku dagaalamaan magaalada Muqdisho dhexdooda, qaarkood ay saaxiibo yihiin, iyada oo gudaha lala galay ama dib loogu noqday wixii aan ka soo gudubnay qabiilka ahaa. waxa dhagahayna ku soo badanaya ama ku soo bartay akhbaar aan fiicnayn oo ah in madaxweynayaashii hore ee dalka ka amaan heli la yihiin ciidamada qaranka. waxaa ceeb weyn ku ah dowladda in qof u soo shaqeeya dalkiisa qarankiisa oo baqdin ka muujiyo ciidamada qaranka ay ahayd inay asaga ilaaliyaan, maadaama laga yaabo inay jiraan godobo uu ku galay magaca ummadda Soomaaliyeed. waxaan la yaabanahay shakhsiyan, waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ay la qabaan arrinta iyada ah. wasiirka maaliyadda ee dowladda waqtigeeda dhamaaday oo gaas ku sii shubay xaalad horay u kacsanayd, kadib markii uu si cad u sheegay in aan mushaar loo haynin ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah laga bilaabo bishan. waa mas'uuliyad darro in fashil heer intaa la eg uu ka dhaco wasaaradda maaliyadda. arrintan waxa ay keeni kartaa amniga oo xumaada, waxa ay hakad gelin kartaa habsami u socodka howlaha qaranka iyo hay'adaha dawliga ah. gaar ahaan xilliga hadalka la yiri, xilli kacdoon uu ka jiro, dareen uu ka jiro, walwal uu ka jiro gudaha dalka, gaar ahaan ciidanku ka walwalsan mushaarkooda inay qaadan doonaan mustaqbalka iyo in kale, in wasiirkii mas'uuliyad darro noocaas uu ku kaco walina uusan ka bixin raaligelin. waxaan aaminsanahay dhaawac weyn iyo shalay wixii dhacay inay qayb ka ahayd laftigeeda. waxaan sidoo kale wax laga xumaada ah in gaf joogto ah loo geysanayo dowladda aan walaalahanahay ee dalka Djibouti oo ah dowladdii soo dhistay dowladnimada hadda aan haysana aasaaska u dhigtay. arrinta waa ka digaynaa. walaaltinimadu way jiraysaa, siyaasaddu maalin bay dhammaanaysaa. siyaasadda maalin dhammaanaysa ee saacada soconayso amba siyaasad isbedeli karta subax iyo galabkii in lagu lumiyo xiriir qoto dheer, walaaltinimo, saaxiibtinimo, waxaan u aragnaa mas'uuliyad darro. waxayna u baahan tahay arrimahaas in aad iyo aad looga fiirsado inta aysan dhibaato keenin. waxaan soo dirayaa baaq. waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka oo xalay ilaa maantay ku howlanaa in ay xaaladda dalka ku jiro dejiyaan. madaxda dhaqanka oo aan saaki wada hadalnay, xalayna aan wada hadlaynay si joogto ah, waxay ii xaqiijiyeen in meel fiican ay marayso dadaalkooda xalka loogu helayo ciidamada isku hor fadhiya magaalada Muqdisho
waxaana muuqata maantay alxamdulilah inaan wax dagaal ah colaad aan la soo sheegin waxaana rajeynayaa in odayaasha dhaqanka oo xaqiiqda isxilqaamay inay shaqada hadda ay wadaan lagu kaalmeeyo ilaahayna guul uu ka keeno dhiig kaloo soomaalina uusan daadanin waxaan baaq u dirayaa ganacsatada bulshada iyo bulshada rayidka ah inay si degdeg ah u soo galaan masiibada ka bilaabatay caasimadda oo aan ka baqayno inay keento khasaare naf iyo maal ah iyo qaran dumis waa xaalad aada u khatar ah waa xaalad cabsi leh waxay u baahan tahay qof kastoo Soomaali ah ay ku jirto dadnimo iyo wadaniyad ku jirto inuu u howlgalo sida marxaladan loo damin lahaa marxaladan waxay ka mid tahay marxaladan ku qiyaasi karna malaha in maantay rajadii iyadoo nagu jirto qarankii Soomaaliya dib u dhismay dowladnimadii Soomaaliya curatay laga soo maray dib aad u fara badan in maanta arinta dhacda aad baan uga xunahay sida kaliya oo looga bixi kara xaaladda adag ee uu dalku galay ama dalku uu ku jiro waa in miiska wada hadalka lagu laabto doorashada degdeg ah dalka u dareero macquul ma aha in la isaga soo horjeedo dhowr degmo magaalada Muqdisho ah magaalada Muqdisho waa markii ugu horeysay muddo 20 sano ku dhawaad ay kala qaybsan tahay maanta waa nasiib xumo waa magaaladii laga daawanayo caalamka inay sidaas tahay mas'uuliyadeedana waxa iskala dawladda hadda talada hayso inay caaw gaarto marxalad heerkan la gaarto oo adduunka ay leeyahay Muqdisho way qaybsan tahay waa wax aad looga xumaado qatarteedana ku leh jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya guud ahaantiisba ugu dambeyntii madaxda dawladda federaalka ah ee waqtigu ka dhamaaday waxaan kula talinaynaa particular aan kula talinayaa shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaan u hadlayo dad badan oo Soomaali ah inay qaataan go'aan geesinimo leh oo ay uga tunaasulayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed Soomaaliya waxa ay halkan ku soo gaartay oo xaqiiq ah tanaasulaad ay sameeyeen madaxdii soo martay xukunka xilliyadii kala duwanaa oo qaarkood iska casilay mas'uuliyadii ummadda Soomaaliyeed u hayeen si loo baajiyo inuu daato dhiig Soomaaliyeed waxaan ku jirnaa xaalad maanta waxaan ku jirnaa xaalad u baahan geesinimo xaalad u baahan qofku inuu ka fikiro xaaladiisa xaalad ka duwan xaalad u baahan in loo fikiro 15 milyan oo Soomaali ah oo maanta Soomaan Ilaahay baryaysa inaan colaad ku sii socon waxaan ugu baaqaynaa mar kale ugu baaqayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee talada hadda haysa ee ku meel gaarka u haysa inay qaataan geesinimo ama talaabo geesinimo leh oo ay xaaladda jirta ku dajinayaan oo ay tanaasulaan ayaga u dhaafayna nooca u noqona tanaasulaadkooda laakiin waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh arinta in ay wax uga qabtaan oo xal loogu helo arintan si daba dheeraatay waxaan ugu dambeyntii uga mahadcelinayaa shacabka Soomaaliya guud ahaantiis gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo xaqiiqdii hadii la yiraahdo tanaasulaad ayaga yihiin dadka tanaasula jiray ayadoo dhibaato haysato wadooyinka xiran yihiin ayay dowladnimada taageerayeen waxaan ku sii adkeynaa dowladnimada inay taageeraan waxaan uga mahadcelinaynaa dulqaadka iyo dadnimada ay muujiyeen in qarankan iyo xaaladan aan ku jirno dalka oo wax laciif ah amba wax qafiif ah amba wax jilicsan ah in maanta ay si fudud ku burburi karto mar haday burburtana saan soo kabano way adag tahay dadkeena ka soo shaqeeyay ayaa dareemi kara xanuunka ee leedahay marka dadka bari Muqdishona aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dulqaadkooda ugu dambeyntiina odayaal ku shiray magaalada Muqdisho ayaa raaligelin u diray madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo dawladda waddankaasi odayaasha ayaa sheegay in wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ka xadgudbay dalka Djibouti loona baahan yahay in iyaga oo xambaarsan magaca dadka Soomaaliyeed ay ka raaligelinayaan gafka uu geystay gudoomiye Maxamed Xasaxaad oo hadalka ku furay oo laguna taageerayo loogana hadlaayo dhibaatada ay geysteen dawladda waqtigeedii dhacay ay u geysteen dadka Soomaaliyeed dhamaantiis meelay joogaan ka bilow reer Muqdisho ku xuji reer Djibouti oo maan ugu dambeeyay ninka magaciisa lagu tilmaamo Dibbe oo ku hadlaya waxaad maqleydeen Dibbe waxa uu ku hadlay Soomaali
warkeed ma aha war reer jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti qabtana ma aha waxaan rabaa inaan sheego halkaan ka sheego walaalaheen reer jabuuti inay maqlaan madaxweynaha jabuuti inuu maqlo annaga waxaa qoorta noogu jira haddaan nahay reer muqdisho oo qoorta noogu maran maxamed cabdulaahi farmaajo oo 4 sano loo doortay dalkan wuxuu noqday mas madaxa nooga duuban oo nabad diiday oo doorasho diiday oo xal diiday walaalayaal reer jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelow waxaan rabnaa inaan cod dheer ku maqashiino annaga haddaan nahay reer muqdisho waxaan la daalaa dhacaynaa ninka masiibada noqday oo soomaalinimadii diiday oo dimuqraadiyadda diiday inaan annaguna iska qabanno ummadda soomaaliyeedna ka qabanno ayaan la daalaa dhacaynaa arrintaasaan u taagannahay waxaan inku raalli gelinaynaa adinka intaas inay annagana haysato adinkoo og oo la socda waxaan idinka raalli gelinaynaa hadalkii ka soo baxay ninka lagu magacaabo dibbe oo asagu uu magacaabay oo ra'yigiisa ku shaqaynaya oo soomaalinimadii dhumiyey oo dhaqankii dhumiyey ayaan idinka raalli gelinaynaa beesha caalamka waxaan ka raalli gelinaynaa ayagana oo aan ku taageeraynaa sidaad la socotaan waxaad go'aamideen haddaad tihiin midowga afrika dhammaan beesha caalamka oo dhan soomaaliya inay u baahan tahay doorasho xor iyo xalaala waa midda aan u baahannahay u taagannahay wou diiday maxamed cabdulaahi farmaajo diiday koox yarna jeebabka u gashaday koox yarna jeebabka u gashaday waxaan rabnaa inaad ogaataan go'aankaas waa taageersannahay go'aankaas waxaana ku taageersannahay waxaad diideen inaanay soomaaliya u baahnayn 2 sano oo ku darshi ah ama extension wax la yiraahdo oo macnaheedu yahay waa iska joogayaa doorasho la'aan iska joogayaa waxa aad go'aamideen oo aan diidanahay waa qodobkaas asaga waa diidanahay ma ogolaanayno haddii la diido xal sidii la isaga fuji karaan isaga fujinaynaa waa masqoorta nooga duuban oon xal ogolayn waa iska fujinaynaa annaga gacmaheenna isaga fujinayn haddii alla idmo laakiin waxaan ka codsanaynaa weli caado mar kale waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka waan ognahay taageerada Soomaaliya siidaan waan ognahay dhaqaalaha lagu bixiyay waan ognahay dhiigga ku daatay ee midowga Afrika ciidamada Afrika ay leeyihiin oo Soomaaliya nabad looga raadinayo ku daatay dhiigood ma ilaawin mar kalena waxaan ka codsanaynaa gacmaheennana waa isaga fujinaynaa adinkuna ha ka daalina Soomaaliya inaad wax ka qabataan oo ninka dictatorka ah oo doorasho diidka ah oo Soomaali diidka ah oo caalam diidka ah inaad gacmaha nala qabataan oo idin ka daalina waan ka codsanaynaa intaas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo ciidamada qalabka sida ee kala duwan si fiican ayaad yeesheen markii uu amarka ku bixiyay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee xilka ku wareejiyay iyo musharaxiinta kale ee xilka madaxweyne u taagan hal la weeraro markuu amarka ku bixiyay hala soo qabto markuu yiri intii diiday oo yiri sharci ma aha ma aqbalayno way mahadsan yihiin inta kale oo diidin waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal waxaad xasaanada aad sidataan ayaad ku tihiin ciidan oo qaymo ku leedihiin waa calanka Soomaaliyeed taas aad qaymo ku leedihiin haddii la idinku adeegsado dadka shacabka la idinku diro
nin idin adeegsado aan sharciyan ku joogin oo asba sharcigii diiday walaalayaal ha ka aqbalina si dalku u badbaado dowladnimadu u badbaado diida sharci darrada leedinku adeejinayo diida oo noqda dad sharci ku jooga oo inta sharciga ku joogta difaaca noqda ciidamadana intaasaan ka codsanaynaa waxaan rabaa inaan baaq u diro qolo kale dadka Soomaaliyeed oo xamar jooga oo ganacsatada leh oo reer guriga leh oo xoogsatada leh waxaan kula dardaarmayaa oo shirkan uga wakiil ahay inaynaan lacagtiina sharci darre ku dhiibin xooggiina sharci darre ku dhiibin sharci waa u jeedaa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa diiday waxaa la rabaa in sharciga lagu soo celiyo dalkan iyo qarankii Soomaaliyeed qarash xoolihiina meel cidlaha ku dhiibinina cashuurta meel cidlaha ku bixinina waayo leenkugu adeegi maayo ummadii Soomaaliyeed ma loogu adeegayo waa wax jeeb la gashanayo dadkii la isku dirayo waa aragtaan dadkii baa la isku diraya arinta ayada waxaan rabaa oon ku dardaarmayaa oo aan cod dheer ku leeyahay xoolihiina ilaashada sharafkiina ilaashada ha iska dhiibina xoolihiina aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin warkayga waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo gudaana daawadayaal barnaamijka saaki VOS waa naga inta ay nabadgeliyo